Ma ogtahay in meesha ugu muhiimsan ee maanta khariidada adduunka laga dayo ay Geeska Afrika tahay magaalada Berbera? Inta badan dadku waxay u arkaan uun deked weyn, laakiin xaqiiqdu intaasi way ka qoto dheer tahay. Hadda dunidu waxay wajahaysaa loolan dhanka badda ah. Berberana ma ahan oo keliya marin ganacsi ee waa hubka sirta ah ee Somaliland ay u adeegsanayso aqoonsiga caalamiga ah. Maxay tahay sababta quwadaha waaweyn iyo shirkadaha adduunku ugu tartamayaan saaxiibtinimada Berbera? Ku soo dhawaada saaxiibayaal Damal Media. Muuqaalkan waxaan ku falanqayn doonaa 5 qodob oo sabab ka dhigaya Berbera mid ay dunidu la dhacsan tahay iyo siday tani dhab ahaan ugu xidhayso riyada aqoonsiga Somaliland. Haddii aad tahay qof jecel xogta qarsoon iyo falanqaynta dhabta ah, muuqaalkan ha moogaanin ilaa dhammaadka. Qodobka koowaad, goobta istaraatiijiga ee ku taalla Berbera. Berbera ma aha uun deked caadi ah, waxay ku taallaa mid ka mid ah marinada badda ee ugu muhiimsan adduunka. In ka badan 12% ganacsiga adduunka ayaa mara marinka badda cas. Duniduna waxay u aragtaa Berbera inay tahay meel ammaan ah oo laga ilaalin karo marin biyoodka xilli gobolka ay ka jiraan deganaanshiya la'aan. Tanina waxay Berbera ka dhigaysaa iridda Geeska Afrika laga galo. Qodobka labaad, maalgashiga DP World iyo casriyeynta. maalgashi $100 milyan ah ayay shirkadda DP World ku samaysay Berbera, waana aqoonsi dadban. Marka shirkad caalami iyo dowlado waaweyn sida Imaaraadka Carabtu ay heshiisyo 30 sano ah la saxeexdaan Somaliland, waxay fariin u diraysaa maalgashadayaasha kale ee adduunka. Berberana maanta waxay leedahay qalabka ugu casriyeysan ee lagula tacaalayo konteenarada, taasi oo ka dhigaysa dekedda ugu waxtarka badan gobolka Geeska Afrika. Qodobka saddexaad, dhabaha ganacsiga ee Berbera Corridor. Berbera waxay xal u noqotay dhibaatada ugu weyn ee haysata dadka dalka Itoobiya oo ka badan 120 milyan, balse bad aan lahayn. Wadada isku xidha Berbera iyo Itoobiya ee loo yaqaano Berbera Corridor waxay Somaliland ka dhigaysaa laf-dhabarta dhaqaalaha Geeska Afrika. Tanina waxay dowladaha caalamka ku khasbaysaa inay Somaliland ula macaamilaan sidii dowlad madax bannaan oo muhiim u ah nolosha malaayiin qof. Qodobka afraad, saldhigga iyo iskaashiga amniga. Amniga Berbera waa mid ka mid ah waxyaabaha dunida la yaaban tahay. Inta badan dowladaha waaweyn, gaar ahaan Mareykanka iyo Midowga Yurub, waxay si hoose ula shaqeeyaan ciidamada Somaliland si loo sugo amniga badda. Xitaa ay Batigonku u muujinayaan garoonka diyaaradaha ee Berbera oo leh mid ka mid ah dhabbada ugu dheer ee Afrika ayaa muujinaya muhiimadda militari ee ay Berbera u leedahay. Qodobka shanaad, aqoonsiga dadban. Qodobkan ugu dambeeya waa kan ugu muhiimsan. Berbera waxay Somaliland u horseeday waxa loo yaqaano aqoonsi dadban. Marka madax dalalka caalamku yimaadaan Berbera ama ay heshiisyo toos ah la saxeexdaan dowladda Somaliland iyagoo aan marin meel kale, waxay aqoonsan yihiin jiritaanka iyo madax bannaanida dalka Jamhuuriyadda Somaliland. Berberana waa mashiinka xawaaraha ku kaxaynaya aqoonsiga Somaliland. Daawade, 5 qodob aan ku sheegnay keebaad is leedahay waa ka ugu miisaanka culus ee aqoonsigu keeni kara Somaliland.